awees oo qeyra iyo dareen lahaa oo dad badan oo Soomaaliyeed qeyra galiyay ayaa sababtay inaan dib kula soo xiriiro cafisna ku weydiisto ilaahay baana magafaa ilaahay waxa ka soo haraa way gafaan laakiin geesiga waa midka qaladkiisa qirta ee qafka walaalkii markuu ka qaldamay cafis weydiisto runtii aniga cafiska ay weydiistay oo ah inaan ku cafiyo waan ka aqbalay bani aadamkan uu khaldooma runtii laftirkeygana arinta propagandada oo aad media gelisay waa adiga la soo xiriirtay aniga misdheheenin qofa inuu meel soo wacay dadka waa iska camirnayna isdhahay laakiin waxa ay cadaatay oo aan xaqiiqsaday marka ay dhacday anaa filankan adag Soomaali waxay ku maamahda dulmi maduugma ee waa soo daahira meeheen dulmiga Xasan Toob laga galay ayaa maanta soo daahiray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا wanaagsan walba adduunka ka joogtaan anigoo magacayga Ibrahim Buto ku soo dhawo Buto jana aad mahadsan tahay dadana ku cusub please subscribe no sar gambar furo video da keeshin like sar aad mahadsan tahay Soomaali waxay ku maamahda dulmi maduugma ee waa soo daahira meeheen dulmiga Xasan Toob laga galay ayaa maanta soo daahiray waa kana qofkii mar walba oo daacad ah oo dulmi lagu sameeyo amba dulmi laga gal mar unba dulmigiisa soo daahira haddana waa kana dulmigii laga gal ayaa soo daahiray waa kana arintii oo abees baafo 3500 oo la isku haastay oo dadka YouTube leedan buubuuminayay marba dhinac ay u sii dhigay ayaa maanta cadeen u soo baxday cadeen rasmi ayaa maanta imaaday Xasan Toob cadeen rasmi ayuu keenay ilaahay wuxuu qadaray inuu soo hadlo qofkii lacagta oo dhahay 3500 ana soo dhiibay ana awees baafo soo dhiibay ninkii dhahay oo arinta oo walaaqay ayaa soo hadlay ilaahay ayaa ka soo hadalsiiyay waa kana muxuu dhahay ila daawo xasanow warbaahinada oo hadda YouTube-yada ugu hormarsan yihiin inta badan waxyaabaha lagu soo dhigay waxa weeye wax fani ah dhalinyaradu iyo dadka waaweyn inta ay ku mashquulaan la daawado barnaamijyo badan oo sheekooyinana laga helo dadka xilliyada ay shaqo iyo waxbarasho lahayn ay ku mashquulaan intooda badan ay fani yihiin wax iqdi ah ama xasidnimo ah oo aan ku qabo maysan jirin xumaan iyo dhibaato aad ii geysatay maysan jirin dad Soomaaliyeed oo kale aad u geysatay ma aan ogeyn laakiin waxay iska ahayd arrin aan rabay inay fani iska noqoto oo dadku ay madadaalo ka dhigtaan marka waxa ay mar walba dib daacad aad tahay lugooy ma fiicna qofku qiyaana mis lugooy ku sameeyay oo soo baxa qiyaana weelkeeda euro Allah mooho daacad la wiliga aha mar walba daacad la aha waa kana wuxuu taagan yahay maanta hadda ninkaas oo lacagtii ana soo dhiibi ana dhahay wuxuu taagan yahay ninka Holland jooga ana dhahay waa idin wali ana dhahay waxaan dhahay saxaafada calaashaan YouTube leeda isqabqabsigooda aan ka hel ku lahaa waa jeclaaday waa ka helay waa maagay inaan been awoorad aan kugu sameeyo aan ku dhaho 3500 ayaa awees baafo aan soo dhiibay inaan dhaho waaba ka helo waaba jeclaaday oo taagan nin dhan sharaftiisa iyo sumcadiisa ma bafiirna wuxuu fiirna bis isqabqabsigaas iyo YouTuberada oo warka buubuunina marba dhinac saan u dhigaa calaashaan wari amal waa YouTuberada marba hadalka waxa waa kastiyar ay soo khalaan ay buubuunina marba dhinac ay u bixinayaan calaashaan xaqiiq ma laha mooho xaqiiqda waa kana marka ilaahay had soo hadalsi wuxuu taagan yahay aniga ciyaar ay iga ahayd baashaal ay iga ahayd saxaafada ina kala kiciyo iga ahayd ayuu taagan yahay Xasan Toobne waxana khilma dhahda soo u xanaaq wiilsankiisi weyn dhag oo dhaay marka waa kana Xasan Toob oo xanaaqi ninka wuxuu dhahay fiiri marka ila fiiro waa kana magacaygu waxa weeye Nuur Garaataani waxaan joogaa dalka Holland caasimadiisa Amsterdam dadkuna muhiimadooda ugu weyn ay tahay madadaalo anigu runtii waxaan u arkay arrin ay dadku madadaalo ka dhigan karaan oo runtii ay ku mashquul karaan maadaama ay shaqooyin badan jireen intooda badan looga hadlay durdurmeedii awees cali baafo iyo arrimo ku saabsan YouTube laakiin si guud YouTube-ya ila soo xiriiray oo iga codsaday inaan arrintaa kugu weeraro maysan jirin markii aan la xiriiray waa laga yaabaa qaarkood inay fursad u arkeen inaan arrintan inay fursad u arkeen oo ay doonayeen astaamo dadka tusaan oo adiga dhibaato kugu weeraraan laakiin si guud cod gooni iyo soo xiriirtay arrinta iga codsatay ma jirin marka waa laga fiican yahay
in laisku ciyaaro, in been laisku sheego waa laga fiican yahay. Hadda arrinta 3,500 dadka dhan wallahi waxay aaminsan yihiin inuu Xasan Toob uu cunay. Haddana waa kana Xasan Toob ma cunin, lacagtii waa la helay, waxayna qad lacag been abuur ah. Ninkii Holland jooga ayaa soo hadlay, wuxuu dhahay lacag ma soo dhiibin, been ayay ahayd, waxaan rabay youtuberada inaan kala kiciyo, aniga ayaa maagay, ani iyo qof kale youtube kale ayaa qorshahaas isla wadan ayuu dhahay. Waxaa la damcay waxay ahayd in Xasan Toob sharaftiisa hoos loo dhigo, Aweys Baafoon meesha laga wado. Sideen waa dhacday, Aweys Baafoon waa kana meeshiina waa laga waday. Xasan Toobkiina waxaa waaye balaha bulshada dhan waxaa ku faaftay inuu lacagtii oo cuno. Asigana waa kana cadeyntii ma ka daba helin, waa kana wuu muujiyey, wuu soo bandhigay cadeyntii wixii dhammaan. arrintii ku saabsan Xasan Toob lacag ayuu dhacay. Xasan Toob waxa uu dhacay lacag Aweys Baafo ayuu ka dhacay oo gaaraysa 3,500 hadda aad facebookyada iyo youtubeyada aad ka maqasheen. Shakhsi ayaa ka dambeeyay maxaa madadaalo ah in qof sumcadiisii in aad dhul kala gasho oo aad dhahdo lacag buu xaday waa tuug oo wadankee joogtaa hadda Holland Xasanow wadanka Holland joogtaa youtube leeyahay soo wacday waxaa dhahday Xasan Toob 3,500 u soo diray 1,700 caawa soo celi intaas kan uu dhiibi doona. Marka maxay tahay danta kugu kaleefaysa marka laga soo tago in aad waxaan fanni maxaa ah qof baa sumcadiisa dhulka la galaysa. Anigan hadda waa qanacsana, hadda waxaan ku qanacsana inaan lacagtaas oo la soo dhiibin oo Xasan Toob laga been abuuranay ee been ay ahayd. Ninkii falkaas iyo waxaas oo sameeyeen saaxiib waa khaldanta ayaan ku dhahaynaa. Marka waxyaabahaas camal ka fiirso maahan wax fiican. Qof dhan sumcadiisa iyo sharaftiisa inaa ku tumatid waa laga fiican yahay. Maanta haddii adi oo qalbi ahaantaada oo keeni waay waxyaan ma fiicno, wax xun waa. Haddii adi niyad ahaantaada oo keeni waay maahan mooho inaa wax xun aad samaysid mise qof kaleeto oo qofkan cadowgiisa yahay isagoo adiga lagu soo dulgambanayo qofkan sharaftiisa dhulka lagu dhigo ma fiicno saas camal. Marka ilaahay ka cabsi ayaan ku leeyahay saaxiibkayga, adigana tan way kugu dhacday mar kaleeto waxyaabaha camal tan waaba samaysay mar kale waxyaabaha camal ka digtoona calaashaan ma fiicno in lis xasdo oo lis cuqdaday ma fiicno ma walaaltinimo wax ka wanaagsan ma lahan. Aweys oo qiiro iyo dareen lahaa oo dad badan oo Soomaaliyeed qiiro galiyay ayaa sababtay inaan dib kula soo xiriiro afisna ku weydiisto. Ilaahay baana magafaa, Ilaahay waxa ka soo haraa way gafaan, laakiin geesiga waa midka qaladkiisa qirta ee qofka walaalkii markuu ka qaldamay afis weydiisto. runtii aniga cafiska ay weydiistay oo ah inaan ku cafiyo waan ka aqbalay. Marka shay walba waxaa fiican in laga fiirsado, xumaan ma fiicno. Soomaaliya leeyahay in lis xasdo lis cuqdaday waa laga fiican yahay. Marka waxaan rabay inaan arrintaas idin soo socodsiiyo. Aweys Baafo arrintiisa xagga lacagta ahayd meeshan ayay maanta ka bilaawday kusoo afjarmo. Isaga ayaa kiciyay colaadan, isaga ayaa boonbooniyay. haddana cafis u weydiistay alxamdulilah tacaala laa taqnaduu min raxmatillah. ma khaldamo waa ilaahay, bani aadanka mar walba wuu khaldoomaa, laakiin waa inuu soo laabta bani aadanka hadduu khaldoomo. runtii aad iyo aad aan faraxsanahay inuu ila soo xiriiro. mar kale Aweys Baafo waa lacag ka maqan, Aweys Baafo waa lacag saan lama maqlayo. Asiga waa la-yahay hore dhub u dhahay, siduu dhub u dhahay dhubkiisa hore ha u ahaado ma fahamino. Marka asxaabteyda aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin idinkana. waxaan idin leeyahay meel walba aad joogtaan bash barwaaqi caafimaad ayaan idin rajeynaa. aniga waa fiicana maasha Allah, idinkan inaa fiicantihiin ayaan rajeynaa insha Allah. aad iyo aad u mahadsantihiin garab qabashadiina. meel walba aad joogtaan waxaan idin leeyahay salaan sare. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa ku mahadsantahay daawashada.